dagaal culus oo saacado badan qaatay ayaa xalay ilaa iyo saaka ka socda buuraha Xabley ee degmada Ufeyn ee gobolka Bari sida ay inoo sheegeen wararka halkaasi naga soo gaaray. dagaalka oo si gaar ah ugu dhacay deegaanka Dhaban Qoxle ee buuraha Xabley, koox ka tirsan Daacish ay soo weerareen saldhigyo ciidan oo ay cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland ay ku leeyihiin Dhaban Qoxle. ciidamada difaaca Puntland oo heegan sare ugu jiray ayaa si adag isaga difaacay weerarkii Daacish ay ku soo qaaday saldhigyada, halkaasi oo ay ku dileen dagaalamyahanno ka tirsan kooxda. israasaaseen xoogan ayaana weli socoto. ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada difaaca maamulka Puntland ayaa sidoo kale ku dhintay dagaalkaasi oo weli socda, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 6 kale, kuwaasi oo qaarkood dhaawacyadooda uu fudud yahay sida ay wararku sheegeen. Puntland ayaa weli dagaal sifayn ah kula jirta kooxda Daacish oo inta badan fariismahoodii buuraha Calmiskaad looga saaray, waxaana socda howlgal goos ah oo ciidamadu ay sheegeen inay kula jiraan firxadka kooxda Daacish. Zamzam Maxamuud, HBM TV, magaalada Nairobi.